dadka taageerayaasha u ah maamulka Soolsanaag iyo ceer kulan ay ku yeesheen magaalada London ayaa ku sheegeen in ay maamulkoodu uu yahay mid ka madax banaan maamulada Soomaaliland iyo Puntland. Warana ay isugu yimaadeen taageerayaasha hoggaanka Soolsanaag iyo ceer ayaa ka dhacay magaalada London. kulankaasi ayaa ahaa mid taageerayaashu ay ku muujinayeen in maamulkoodu uu yahay mid ka madax banaan maamulada Soomaaliland iyo Puntland. warbixinta warkaasi waxa inoo haya waryahayaga Cabdinaasir Ciro. garaad jaamac garaad Ismaaciil oo kamid ah salaadiinta ka soo jeeda gobolada Soolsanaag iyo Cayn ayaa si weyn ugu nuuxnuuxsaday soo dhaweynta iyo waliba taageerida waxa uu yeeray hoggaanka SSC oo dhawaanahanba ku hawlanaa guluf ka dhana maamulada Garowe iyo Hargeysa. garaadka ayaa hadalkaasi ka soo jeediyay goob fagaara ah oo ay isugu yimaadeen taageerayaasha SSC ee magaaladan London waxaana uu garaadku sheegay in maanta goboladaasi ay garteen inay ka tashadaan danahooda saantana ay hore u qaadaan iyadoo taasi uu ku macneeyay in danaha gobolada SSC ay qusayso oo kaliya dadka ku abtirsada deegaanadaasi ayna faraha kala baxaan maamulada Somaliland iyo Puntland oo iyagu kala sheegta goboladaas waa sida uu hadalka u dhigay. waxa aynu sharaf ku leenahay waxa weeye inagoo isqabsana gacmaha inagoo dadkeena ka warhayna inagoo xaaladda maanta lagu jiro ka warhayna inagoo hoggaankeena SSC taageerna sidaas aynu ummadda kooda ku horfariisan karnaa inagoo aanu sharaf leh wax ku yeelan karnaa. khudbada garaadka oo ay u dhagraariciyeen dadkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay ayaa waxa ay taabanaysay xaaladda guud ee deegaankaas siyaasad ahaan iyo waliba dhaqaale ahaanba iyadoo waayadanba la waday dardar xoogan oo bulshada ku abtirsata deegaanadaasi looga dhaadhicinayo hadafka iyo waliba ujeedooyinka looga gol leeyahay barnaamijkan hoggaanka SSC. waxaan haddaanu nahay ururka dhalinyarada sida aan aad iyo aad si diiran aan u soo dhaweynaynaa garaad jaamac garaad Ismaaciil waxaana u leenahay SSC iyo wixii ka abtirsado dhami waa inay meel qurays ku yimaadaan. dareenka dadka ayaa waxa iiga dhex muuqanayay xamaasad ay dadku ku ayidayaan hadallada ka soo burqanaya garaadka qaarkoodna ay ku go'ahayeen inay muujin doonaan taageero hil iyo hooba leh. gabagabadii khudbadiisa ayaa waxa ii suurta gashay bal inaan weydiiyo su'aalo kooban garaad jaamac oo ay ugu horeysay ujeedooyinka ka dambeeyay barnaamijkan hoggaanka SSC. hoggaanka maanta jira waxaa loo doortay oo ismadu ansixiyeen inuu hanto deegaankii iyo dhulkii dadkii iyo ummadii kabacdina hadhowta wixii looga gudbo dadka deegaanka ku dhashay ay isugu yimaadaan oo waxa weeye ay isku afkartaan. fikirkiisa u shaqeynaya haddii dadkii SSC isku raacsanayn Soomaalidu waxay tiraahdaa xalka geelba wada xidhaan talada beesha dad baa mas-uuliyadeedii iyo taladeedii waxa weeye iyagu ka mas-uula. Soomaalida dhaqankeedu wuxuu noqday inay yiraahdaan waxa looma dhama marka taladan ismadii beesha u dhahatay SSC 14 koodiba go'aan cad ay ka soo saareen oo ay ku midaysan yihiin.